kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution. Dad ku cusub tahay subscribe ka saar beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay oo noqotid kuwa u hor daawada. Hala hilmaamin inaad like saartid barnaamijka ana wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan. Waa mahadsantiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Somali Technology Solution. Daawadayaal dhamaantiin welcome. sida wanaagsan aad la socotiin channelkayga aad iyo aad baad ugu mahadsantiin. Maanta wuxuu ku saabsan yahay casharkeenani sida loo soo download gareysto Packet Tracer adigoo ku shubaya Windows. Aynu tusay aad u leeyahay insha Allah aan iska bilaabano. haddii aanad haysan Packet Tracer waxaad u baahan tahay inaad soo download gareysatid. waxaad gelaysaa website-ka URL-ka xaggan aan igu soo qori doonaa. waxaad gelaysaa netcat.com kadibna waxaad samaysanaysaa username. haddaanad username haysanna haddaad username haysataa login baad oranaysaa. haddaad username haysanna mid baad samaysanaysaa. so casharkeeni kan ka horreeyay maaga aan ku shubay ayaan shalay kaga soo hadlay. maanta waxaan haysanaa Windows 10 ayaan ku shubi doonaa haddii la idhaahdo. markaas han ku galo username-kaygii aan samaystay casharkii kan ka horreeyay. okay already waan ku jiraa. waxaad tegashaa meesha ay ku qoran tahay source. aan inii soo dhaweeyo wax yar haddaad doonaysa inaad aragtiin. wax yar inaad aragtiin haddaad doonaysiin inaad si fiican u aragtiin waan inii soo dhaweyn karaa. waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay www.netcat.com. okay kadibna waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay resources. kadibna hoos baad u soconaysaa resource. markaad dooratid resource baad ku dhufanaysaa. kadibna waxaad tegaysaa Packet Tracer, download Packet Tracer. kadibna waxaad baxaysaa hoos baad u baxaysaa adigoo hoos u soconaya. kadibna waxaad dooranaysaa hoos xagga inaga hooseysa ayuu kusii jiraa si aad si fiican u aragtiin. aan ini tuso dhinacan hanu kaco wax yar. waxaan samaynayaa farta ayaan inaga yareynayaa si aad si fiican u aragtiin. hoos baad u soconaysaa. meeshan waxaad tegaysaa download 64-bit downloading. 64-bit baan ku shubanaa. halkan aan ku dhufanayaa marka Windows desktop version. Packet Tracer, Cisco Packet Tracer waxa weeye saad la wada socotiin mid lagu practice laabyada CCNA-da iyo CCNB-da iyo waxa alla wixii Cisco ku saabsan. aad iyo aad waana free. halkan ayaad ka download gareysaa. marka 64-bit system haddaad haysataa halkan aad ku dhufanaysaa. 32-bit haddaad haysataa xagga ku dhufanaysaa. okay 64 baan haystaa anigu. wii download gareynayaa hadda. halkan saad la socotiin meeshan ayuu socodsiinayaa. internetka waa very fast. uu degdegayaa. wuxuu qaadanaya ilaa 30 second 40 second roughly 1 minute. waan iska suganaa ilaa intuu inoo dhammaynayo. okay 66 wuxuu socdaa up to 78. okay few second. so Packet Tracer wuxuu qabtaa waxyaalo aad iyo aad u fara badan. waxaad ku baratay gareyn kartaa Cisco CCNA iyo Cisco CCNB. marka waa aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. marka Cisco Packet Tracer ayaan soo download gareystay. resources baan tegay. waxaan sii doortay download Packet Tracer oo resources haddaad doontid casharo haddaad rabtid inaad ka gadatid networking ku saabsan from Netcat. waa academic. gaar ahaan waxaa loogu talagalay university-yada dadka jaamacadaha dhiga casharada network ay ardayda u dhigayaan for semesterka networking qaadanayaan. aad iyo aad buu ugu habboon yahay. annagu waxaan inagu haynaa somts.com isagoo faahfaahsan iyo isagoo casharadii resource-kii wixii soo dhan wata. marka hadda uu dhameeyey faylkii uu soo download gareeyay ayaan tegayaa. hanin tuso meesha ku download gareey first. waxaan leeyahay open with show me the folderkii wuxuu igu save gareeyay xaggan my desktop-kayga. waxaan leeyahay double click
wuxuu igu download systemka ayuu igu download gareeyay waxaan leeyahay open baan idhi wuu soo socdaa wax yar walaa su-aashan ku weydiinaya wuxuu leeyahay miyaad iska hubtaa hawshan inaad ku download garaysay systemkaaga waxaan leeyahay yes waan iska hubaa haa waxaan iska soo gaagaabinay all of them waan hubaa haa waxaan leeyahay accept license kusiidaa desktop shortcut mayaan ku sameeya haa baan leeyahay iska sameeyo dhib male install baan leeyahay waan ku install garaynayaa okay installing ayaan hadda sameynaynaa saad la socotiin installing buu inoo wadaa si aad si fiican u aragtiin ayaan inii weyneeyey si aad si fiican u aragtiin ayaan inii weyneeyey hadduu ilaahay insha allah okay downloadkii buu inoo wadaa hadda wuu dhameynayaa insha allah okay downloadka saas uu soconaya marka computerka hadduu dhaqso badan yahay deg buu kugu dhameynaya hadduu computerka low yahayna ayar ayuu soconaya okay waa finish wuu inoo dhameeyey su-aashan ina weydiinaya do you like to run a multiple useries oo qof kaliya isticmaalaya waxaan leenahay yes multiple user baa isticmaalaya okay waa kan Cisco Packet Tracer waa inoo diyaar hadda wuxuuna geenayaa qaybtii su-aashan ku weydiin doona haddaad Windows isticmaalaysa Windows Defender Firewall has blocking some features do you want to allow habaan leeyahay inaan out labada u ogolow waan u ogolaanayaa because waxaan aniga isticmaalaya waan hubaa okay hadda wuxuu inoo sameeyey wuxuu dhow inoo sameeyey si aan markaa u sii isticmaalno wuxuu naga rabaa halkan inaan galino emailkeena emailkayga ayaan gelinayaa anigoo halkan somts.com kadibna waxaan leeyahay next kadib wuxuu isdiinaya passwordkaygina waan gelinayaa next passwordka markaan geliyo wax yar few second ayuu qaadanayaa few second markuu qaato inoo dhameynaya markaas wallah saad u jeedin Packet Tracer waa kan oo diyaar saad u jeedin Packet Tracer waa diyaar waa kan waa inoo diyaar hardware-radii halkan ay yaalaan device haddaad doonaysid device-yadii oo kooban xaggan ay yaalaan kan waa routerkii router ayaan rabaa routerada ku doormay kaad rabtid waxa ku sii xiga switches 2960 ayaa Cisco CCNA lagu bartiskareeyaa computer ayaad qaadanaysaa computer markaad qaadatid waxaad ku xijisiinaysaa kan kale markaa saas ayaad isagana ugu download garaynaysaa hadduu ilaahay insha allah Packet Tracer waa kan waa inoo diyaar markaa waa Packet Tracer ساسد ويندوز أنا وشو سأدي أدود ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.